بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جالك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso mudan inaynu ku cibro qaadano qisadan ayaa waxay dhaxmartay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo nin yahuudi ah ninkan yahuudiga ayaa wuxuu diris la ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna mar waliba damci jiray inuu rasuulka dhibaato u geysto hase yeeshee wuxuu ka baqi jiray in saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay dilaan maadaama ay hooshii u noqon weyday sidii uu rabay ayuu wuxuu ku fikiray inuu habeenkii guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa soo dhigo qashin si rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu dhibaatoodo markii uu gurigiisa ka soo baxayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaaday in ninka hawshan sameynayo uu yahay ninka dariskiisa ah ee yahuudiga ah rasuulka waxba kama uusan soo qaadin wax uu ku sameeyay ninkan balse mar waliba markii uu soo baxo ayuu ku qosi jiray wuxuuna iska qaadi jiray qashinka guriga hortiisa yaallo muddo kadib ninkii yahuudiga ah aad ayuu xanuunsaday wuxuuna koray sariir rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu waayay ayuu raadiyey wuxuuna ugu tagay gurigiisa isaga oo soo booqanaya ninkii markii uu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ayuu ula yaabay markaasuu wuxuu ku yidhi yaa kuu soo sheegay inaan xanuunsanahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaan waayay qashinkii aad ii soo dhigi jirtay ninkii yahuudigaha aad ayuu u ooyey wuxuuna ku dhawaaqay shahaadateynka sidaa ayaana alla subxaanahu wa tacaala uga badbaadiyey gaalnimadii uu ku dhiman lahaa qisadani waxaynu ka faa'iideynaa sida uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u ahaa ruux naxariis badan dadkana aan xumaantooda xumaan kale ugu bedelin waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan sabaskraib dheh gamalaalkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono mahadsanid